بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض الدعوة يا دمانتين بكسور دواء ورالكي تلفزيون كقرن كجمهورية الصومالي لاند shacbiga magaalada Gabiley ayaa waxay sameeyeen barnaamij ay ku taageerayaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland difaaca ay dalka kaga difaacayaan maleeshiyada iyadoo ku soo gardarootay deegaanka Buuhoodle isla markaasina ay ku taageerayaan khudbadii dastuuriga ahayd ee madaxweynaha Somaliland uu dhawaan u jeediyay golayaasha baarlamaanka nimcaan deeg Ibrahim ayaa warkaasi magaalada Gabiley nooga soo diray waxbalaarin oo lagu taageerayay ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland ee ku sugan deegaanka Buuhoodle isla markaasina si balaaran lagu taageerayay gobolada bariga Somaliland ayaa maanta ka dhacay guud ahaanba gobolada Gabiley nabaxaasi oo maanta loo kala harin oo ay ka qayb qaadanayeen dadweyne aad u tiro badan oo guud ahaanba ku dhaqan gobolka Gabiley isla markaasina ay ka dhex muuqdeen maamulada kala duwan ee dawliga ee gobolka Gabiley isla markaasina ay maamulka dawladda hoose iyo maamulka gobolkuna ay ka mid ahaayeen dadkaasi ayaa maanta si rasmi ah uga dhacay guud ahaanba gobolkaasi Gabiley dadweynaha oo socodka oo ka soo bilaabay xarunta fagaaraha khayryada magaalada Gabiley isla markaasina suuqada waaweyn ee magaalada Gabiley ku dhex marayay ayaa guud ahaanba isugu soo bixi shubtay fagaaraha khayryada magaalada Gabiley halkaasi oo ay kala hadleen dadweynaha ka qayb qaadanayay barnaamijkaasi uqaasha waxgaradka iyo waliba mas'uuliyiinta kala duwan ee gobolka iyadoo uqaasha haweenweynaha culumadiinku ay dadweynaha halkaasi kala hadleen ilaahayna uga bariyeen dadkaasi muujinaya jiritaanka qarannimada Somaliland inay tahay mid muqadas oo lagu taageerayo waxayna uqaasha kala duwan ee gobolka Gabiley ugu baaqeen shacbiga reer Somaliland in meel looga soo wada jeedsado nabadgelyada Somaliland agwaanada kala duwan ee ciidanka militariga oo horkacayo Cabdi Siyaare iyo agwaan Aamina ayaa iyaguna sidoo kale wacdar halkaasi ka muujiyay maayarka caasimada Gabiley Marwo Khadra Xaaji Geero iyadna halkaasi hadalkooda ka jeedisay ayaa siyaabo badan uga hadashay dhinacyada nabadgelyada iyo jiritaanka qarannimada Somaliland maayarka caasimada Gabiley Marwo Khadra Xaaji Geero Ismaaciil waxay sheegtay inay ka maamulahan iyo waliba ka mas'uuliyadaan ay taageerayaan qarannimada Somaliland taasina tahay maanta Somaliland ku aana maashay ku maaloona soo lana qoyma cidna Somaliland konsultaagay waa muqaddis umarada ma leeyahay umaraha halka ka soo jeeda naftiigu afar qof oo siyaasiyiin oo soo sheegay ra'iisul wasaare soo noqday oo Soomaaliya ka soo noqday la saamo iyo degan dhammaantood waxay taageerayaan nabadda ka taagan Somaliland ay taageerayeen wasaariyo xukuumahay barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiley iyo isla halkaasi ka hadlaya isla sidoo kale mahadnaq u soo jeediyay shacbiga reer Gabiley say dareenkooda u muujiyeen barsaabka gobolka Gabiley Hussein Umar Amagan oo isla halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu aad u soo dhaweynayo sida ay reer Gabiley dareenkooda u muujiyeen isagoo ku amaanay reer Gabiley inay yihiin dadkii Somaliland isla maantana ay muujinayaan qarannimada Somaliland iyo xagga dadkiisa wuxuu horeeyay soo barsan dadweynaha reer Gabiley ayaa maanta siyaabo baan uga soo horjeeda dadka kulli dida qarannimada Somaliland iyadoo cadeeyeen Somaliland maanta aanay kala go'i karin isla markaasina ay diyaar u yihiin heeriyo ay la garab taagan yihiin ciidanka Jamhuuriyadda Somaliland waa nimcaan deeg Ibrahim telefishinka qaranka magaalada Gabiley wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ka soo loobtay socdaal muddo 3 maalmood oo ugu maqnaa wadanka Kenya isagoo kulamo la soo yeeshay mas'uuliyiinta qaramada midoobay ee fadhigoodu uu yahay magaalada Nairobi iyo madax ka tirsan hay'adaha caalamka warkaasi oo faahfaahsan waxay noo hayay Axmed Saki wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo ka soo degay gagada diyaaraduhu ay ka aadaan kana soo degaan Cigaal International Airport
ayaa waxa uu warfidyeennada ugu warramay garoonka diyaaradaha ee caasimadda hargeysa waxaana uu ka warramay ujeeddada safarkiisii oo uu ku tilmaamay inay halkaa u tegeen sidii hay-adaha caalamiga ee beesha caalamka warbixin ay uga siin lahaayeen arrimaha nabadgelyada iyo guudan xaaladda somalilan ee wakhtigani wasiirku waxaa kaloo uu sheegay in muddadii uu ku sugnaa nairobi ay la kulmeen xafiiska qaramada midoobay ee magaalada nairobi ku yaala islamarkaana xoog waran ay ka siiyeen arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada ee dalkani wasiirka oo sharaxaad ka bixinaya kulan ay magaalada nairobi shalay kula yeesheen u qaybsamaha qaramada midoobay ee somalilan iyo soomaaliya augustina mahiga ayaa waxa uu sheegay inay uga warrameen xaaladda ay somalilan ku sugan tahay iyo geediga loogu jiro dhammaystirka hannaanka dimuquraadiyadeed ee dalka halka sidoo kalena ay wafdiga wasiirku u caddeeyeen master mahiga mowqifka ay somalilan ka taagan tahay maleeshiyaadka hubaysan ee colaadda ka urinaya deegaanka buhodle ee bariga somalilan geesta kalena wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somalilan waxa uu xusay in kulankaasi ka dhacay nairobi uu master mahiga ka caddeeyay mowqifka qaramada midoobay ee ku aadan arrimaha xilligan ka taagan meelo ka mida somalilan waxaana uu sheegay in qaramada midoobay mowqif cada ka istaagtay sidii arrimaha nabadgelyada looga taageeri lahaa jamhuuriyadda somalilan wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee jamhuuriyadda somalilan doctor maxamed cabdilaahi cumar ayaa u soo jeediyey maleeshiyaadka u taagan colaadda ee deegaanada buuhodle inay ka waantoobaan arrimaha wax u dhimaya deganaanshaha iyo xasiloonida waddanka islamarkaana ay ixtiraamaan wada noolaanshaha bulshada gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waddanka Kenya ayaa waxa uu socdaal ku yimid caasimadda dalka ee Hargeysa gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya mudane Farax Macalin ayaa markii uu ka soo degay gagada diyaaradaha ee Cigaal International Airport ayaa waxaa si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland mudane Farax Macalin oo warbaahinta ugu warramayay qolka VIP-da ayaa waxa uu sheegay in socdaalkiisa uu yimi ay tahay dhinaca nabadgelyada iyo sidii xal looga heli lahaa arrimaha haatan ka jira Somaliland ee dhanka nabadgelyada gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya waxa uu ammaan ballaaran u soo jeediyay xukuumadda Somaliland iyo shacbigeeda sida wanaagsan ay iskugu duuban yihiin iyo waliba nabadda kaana qaaday dalkani wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa uu socdaal uu ku soo maray deegaanada dhulbeereedka ah ee Dararweyne iyo Rabley waxaana uu u koorgalay mashaariic halkaasi dhawaan laga hirgeliyay wasiirka wasaaradda beeraha ee jamhuuriyadda Somaliland Professor Farax Cilmi Geedoole iyo mas'uuliyiintan ka socday hay'adda wadaniga Maado kormeerkan ay ku soo mareen dhulbeereedyada deegaanada Dararweyne iyo Rabley oo ka tirsan gobolka Nimroodi Jeex ayaa sidoo kale waxa ay xariga ka jireen mashaariic laga hirgeliyay deegaanadaasi iyagoo mishiin biyoodina guddoonsiiyay dadka ku nool dhulbeereedyada deegaanadaasi wasiirka wasaaradda beeraha ee jamhuuriyadda Somaliland oo mashaariicdaasi isku taagay ay ka hirgelisay hay'adaasi wadaniga deegaanadaasi ayaa gudoomiye ku-xigeenka hay'adda wadaniga Maado Mustafa Ahmed Maxamed Xudur oo wasiirka warbixin ka siiyay mashaariicda halkaasi ay ka hirgeliyeen isagoo sheegay in deegaanadaasi Dararweyne Rabley iyo Jaleele ay ka hirgeliyeen mashaariic fara badan oo ay ka mid yihiin inay ka qodeen 13 ceel biyood 3 dhaam hoos iyo 20 mishiin oo ay siiyeen dadka ku nool deegaanadaas oo mishiin biyoodyada iyo mashaariic kale oo ku saabsan dhinaca siirarka iyo tababarka ay ka hirgeliyeen deegaanadaasi waxaana uu sheegay mashaariicdan inay tahay mid muhiim u ah horumarinta deegaanadaasi oo hay'adoodu ay ka shaqeyso arrimaha beeraha wasiirka wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Somaliland oo xariga ka jaray dhaam hoosaadyo laga hirgeliyay dooxyada deegaanadaasi oo lagu qabanayay biyaha iyo mashaariicda kale ayaa waxa uu tilmaamay inay yihiin mid muhiim u ah horumarinta beeraha waxaana uu ka warramay siyaasadda qorshaha wasaaradda beeraha ee ku aadan horumarinta beeraha Somaliland waxaana uu sheegay in ay wasaaradahan ku dadaalayaan arrimahaasi oo goobo biyoodyaha laga hirgeliyay ee biyaha lagu qabanayo si ciidda iyo biyaha loo hirgeliyo ay sanadkani dhan tahay buu yiri 29,500 mitir kuwaas oo u dhigma 29 kilomitir oo dhammaanba laga joojiyay gobolada iyo degmooyinka dalka goobo biyuhu si aad ay u mari jireen si loo qabto ciidda iyo biyaha waxaana uga mahad celiyay hay'adda Norwegian-ka ee hirgelisay fankan iyo qaybaha kale mashaariicda waxaana uu sheegay wasaaradahan inay soo dhaweynayaan cid kasta oo horumarinaysa arrimaha beeraha oo ku tilmaamay inay ka mid yihiin lafdhabarta Somaliland
geesta kale wasiirka wasaaradda beeraha ee jamhuuriyadda somalilan brofesor faarax cilmi geedoole oo maanta guddoonsiiyey suduwaha beeraha ee gobolka sanaag gaadhi uu adeegsan doono xafiiska beeraha ee gobolkaasi. munaasabadda guddoonsiintan oo ay goobjoog ka ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaraddaasi cabdilaahi ismaaciil, agaasime waaxyaha iyo qaar ka mida shaqaalaha ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa xubna ka tirsan guddida joogtada ee golaha wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan. wasiirka beeraha ee somalilan mudane geedoole oo halkaasi ka hadlay ayaa mahadcelin u soo jeediyey wasaaradda maaliyadda oo ku ammaanay sida ay miisaaniyadda sannadeedkii wasaaradda ugu dartay gaadiid ay wasaaraddu adeegsan doonto oo ay ka mid tahay gaadhigan xaajiyadda ah ee maanta la siiyey xafiiska wasaaradda beeraha ee gobolkaasi sanaag. wasiirka oo gaadhigaasi si rasmiya ugu wareejiyey suduwaha wasaaraddaasi ee gobolka sanaag ayaa ku ballan qaaday in ay ku tala jiraan gaadiid kale oo ay kugu tala galeen gobollada awdal maroodijeex, sidoo kalena ay sanadkii tegay gaadhi ku wareejiyeen xafiiska wasaaradda beeraha ee gobolkaasi gabiley. wararka kale ee dalka gudihiisa aanu idinka hayno ayaa waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda somalilan ayaa munaasabad martijaada waxa uu ugu sameeyey hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa. dhakhaatiirtii masaarida ahayd ee iyagu hawsha qalliinka iyo eegitaanka iyo daaweynta bay iskugu jirtay ee muddada toddobaadka ah ka waday cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. hadaluu munaasabadaasi wasiirku ka jeediyey ayaa uu ugu mahad celiyey dhakhaatiirtaasi muddadii 7 cisho ahayd hawsha ay u qabteen shacbiga Somaliland guud ahaantood iyo gaar ahaanba dadkii iyagu bukaanada kala duwanaa daaweyntooda u baahnaa iyo qalliinada la soo xidhiidhay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. waxa uu tilmaamay in ay hawshaasi wax weyn ka tartay dhinaca caafimaadka. gudoomiyaha guddiga maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa Axmed Maxamed Madar ayaa sidaasi si la mid ah ugu mahad celiyey dhakhaatiirtaasi masaarida ah. sidoo kalena mas'uuliyiin ka tirsan cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ka warameen hawshaasi muddadii ay socotay iyo sida wanaagsan ay u dhamaatay. kulan la xidhiidha xalinta khilaafaadka iyo xoojinta nabadgelyada ayaa isaguna waxa uu ka furmay magaalada Hargeysa, waxaana ka qayb galay ilaa iyo 20 caaqil oo ka kala socday deegaamada gobolka Maroodijeex. kulankan oo lagu qabtay hotel Imperial ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Somaliland mudane Cismaan Garaada Soofi, barsaab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex, mas'uuliyiin kale oo ka kala socotay waxyaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo in ka badan 20 caaqil oo ka mid ah kuwan gobolka Maroodijeex. furitaankii kulankan oo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi arrimaha guduhu uu hadal ka soo jeediyey ayaa waxa uu tilmaamay in uu yahay sidii kor loogu qaadi lahaa xalinta iyo khilaafaadka isla markaasina loo adkeyn lahaa nabadgelyada iyo horumarinta degmooyinka gobolka Maroodijeex. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Somaliland waxa uu tilmaamay in wasaaradda arrimaha guduhu ay diyaar u tahay gacansiinta kulamada noocan oo kale ah isla markaasina ay kala qayb qaadanayaan sidii loo xoojin lahaa ama loo siin lahaa talo iyo tusaale wixii ay uga baahdaan xoojinta iyo adkeynta nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex Rashiid Axmed Maxamed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in uqaasha gobolkan Maroodijeex ay si xoog ah u caawin doonaan ka hortagga dhibaatooyinka gobolka Maroodijeex ka jira sida la dagaalanka mukhaadaraadka iyo waxyaabaha la halmaalay ee dhaqan xumadu ay ka mid tahay. waxaanu tilmaamay in kulankani noqon doono mid kor loogu qaadayo howlaha qaranka gaar ahaan dhinaca amniga. xiriirka gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha mudane Maxamed Axmed Obolos oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda ku jirta mashruucan la doonayo in cuqaasha gobolka Maroodijeex ay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka iyo kor u qaadida nabadgelyada iyo weliba horumarinta degmooyinka gobolka Maroodijeex, isla markaasina uu tilmaamay in ay ka mid yihiin cuqaashu hoggaanka bulshada laga maarmaana ay tahay inay ka soo baxaan talooyin iyo tusaale wax lagaga qabto mushkiladaha ka jira dhinaca gobolka Maroodijeex ee amniga iyo adkeynta khilaafaadka. xiriiryaha gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha mudane Maxamed Axmed Obolos oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda ku jirta mashruucan xalinta khilaafaadka iyo adkeynta nabadgelyada
waxaanu tilmaamay in cuqaasha gobolkan maroodijeex ee kulankan loo furay ay yihiin kuwa ka qayb qaadan doona sidii loo adkayn lahaa nabadgelyada iyo xalinta dhinaca khilaafaadka halboolona ay u yihiin dhismaha qarankan jamhuuriyadda somalilan marka loo eego kaalinta ay bulshada kaga jiraan oo ah buu yidhi hogaaminta bulshada in ay kow ka yihiin waxaanu tilmaamay in ay ka soo bixi doonaan inta halkan ay ku sugan yihiin ama kulankani uu socdo arrimo dhaxalgal ah oo tallaabooyin ku habboon looga qaado agaasimaha waaxda amniga maxamed cali xamari iyo madaxa mashruucan maxamed daahir ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay kulankan ayaa socon doona muddo 2 cisho ah waxaana lagu naaqishi doonaa sidii xal loogu heli lahaa mushkiladaha isla markaasina loo adkayn lahaa nabadgelyada iyo horumarinta degmooyinka gobolka maroodijeex guddiga qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta waxay soo bandhigeen qandaraaska samaynta iyo dib u habaynta erboodada magaalooyinka hargeysa iyo berbera hay-adda qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa maanta waxa ay bilowday qabashadii araajida iyo caddaymaha shariikadaha qandaraaslayaasha ah iyadoo isla maantaba soo afjartay arrintaasi waxaa munaasabadaasi ka qayb galay shirkado iskugu jira waddani iyo ajaanib oo halkaasi ka hadlay agaasimaha guddiga qandaraasyada qaranka maxamed cabdi bulaale oo sheegay in aanu hayn qandaraaskii ugu horreeyey ee ay bixiyaan guddiga qandaraasyadu hase ahaatee ay jireen ilaa iyo 3 qandaraas oo ka horreeyey kuwaasi oo si cadaaladda ah ay ku soo dhammaystireen qandaraaskanna uu noqon doono mid si cadaalada u dhaca waxaa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka oo sheegay in muddo ah la sugayey qandaraaska maantana uu u qarsoomay dhowaanna ay soo afjari doonaan waxaana xuseynay laga maarmaan tahay in laysu hibeeyo ciddii ku guulaysata qandaraaskani waxa uu mahad celiyey dowladda waddanka kuwait oo iyadu bixinaysa qarashka ku baxaya eerboodada qandaraaskaasi lagu bixinayo gabagabadiina waxaa caddaymo laga qaaday shariikadaha iyagu soo xareeyey araajida iyo caddaymaha ama dokumentiyadooda waxaana loo ballamay madal dambe oo aan la muddayn dalladda haweenka ee nagaad ayaa waxa ay xarun cusub ay ka furteen magaalo madaxda gobolka sanaag ee ceerigaabo war faahfaahsan oo amuurtaasi la xidhiidhana waxaa noo soo diray wariyahayaga maxamed maxamuud saraaf munaasabad ballaadhan oo lagu maamuusayay furitaanka xafiiska isku xidhka dalladda nagaad ee magaalada ceerigaabo ayaa lagu qabtay xarunta xafiiskaasi munaasabadaasoo si weyn loo soo qabanqaabiyey ayaa waxaa ka soo qayb galay maayarka degmada ceerigaabo isuduwaha wasaaradda qorshaynta ee gobolka isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka mas-uuliyiinta dalladda nagaad ururada haweenka ay wada shaqaynta leeyihiin dalladda nagaad iyo martisharaf aad u tiro badan waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlaya agaasimaha fulinta hay-adda dalladda nagaad nafise yuusuf maxamuud iyo siciide axmed oo ka mid a guddiga boorka dalladda nagaad oo labadooduba faahfaahin ka bixiyey howlaha adeega waxqabada ee xafiiskan uu fulin doono waxaana xuseen in mashruuc ay iska kaashan doonaan dalladda nagaad iyo hay-adda keer oo socon doona muddo 3 bilood ah ay wakhtigan gobolka hay-addoodu ka bilaabi doonto kaasoo ku wajahan bay yidhaaheen wax ka qabashada tacadiyada iyo xalinta khilaafaadka bulshada waxay kaloo intaa raaciyeen mas-uuliyiinta dalladda nagaad in xafiiskana uu yahay kii 3aad ay ka furtaan gobolada dalka isla markaasna uu faa'iido weyn ku soo kordhin doono gobolka sanaag mas-uuliyiinta dalladda nagaad waxay kaloo warbixin ka bixiyeen mashaariicda ay hay-addoodu ka fuliso gobolada dalka oo ay ugu horreeyaan bay yidhahdeen dhinacyada waxbarashada caafimaadka deegaanka horumarinta arrimaha haweenka iyo weliba ku dhiirigelinta ka qaybgalka siyaasadda ee dhinaca haweenka waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada faadimo xaaji xasan isuduwaha wasaaradda qorshaynta xuseen axmed cabdille iyo suldaan ismaaciil nuur waxay soo dhammaantoodba si isku mid a u soo dhoweeyey furitaanka xafiiska ee nagaad ee gobolka waxaynay ballan qaadeen inay soo dhoweynayaan lana shaqayn doonaan gebagabadii munaasabadaasna waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur oo isaguna dhinaciisa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka xafiiska nagaad ee magaalada ceerigaabo isagoo maayarkuna inta raaciyay in dalladda nagaad ay uga fadhiyaan mashaariic wax ku ool ah oo ay gobolka iyo degmadaba ka fuliyaan maadaama ay muddo dheer sugayeen doorka waxqabad ee dalladda nagaad ee ku wajahan horumarinta gobolka sanaag intaa kadibna maayarka degmada ceerigaabo waxa uu si rasmi ah halkaasi xadhigga ugaga jaray xafiiska isku xidhka dalladda nagaad ee magaalada ceerigaabo
ceergabo dhinaca kalena munaasabad ballaadhan oo lagu maamuusayay caleemasaarka suldaan cusub oo laga soo doortay deegaanka degmada Yube ee gobolka Sanaag ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee Mahuraan ee magaalada Ceergabo munaasabadaas oo si weyn loo sagaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay boqorro salaadiin cuqaal guurti aqoon-yahano dhalinyaro iyo haween aad u tiro badan waxaana ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka suldaanka laga soo doortay oo dhammaantoodba ka warramay hannaankii lagu soo doortay madax dhaqameedkan iyo sida ay ula shaqayn doonaan iyagoo intaana raaciyeen suldaankan cusub uu hoos iman doono lana shaqayn doono suldaanka guud ee beesha bariga Sanaag suldaan Siciid suldaan Cabdisalaan waxaa kaloo iyaguna halkaasi hadallo isugu jira hambalyo duco dardaaran iyo hogga tusaaleynba ka soo jeediyey madax dhaqameedka gobolka Sanaag ee ka soo qayb galay munaasabadaas oo alle uga bariyay isimkan cusub in xilka loo igmaday uu u fududeeyo iyagoo dhinacoodana ballan qaaday inay la shaqayn doonaan suldaankan cusub waxaa kaloo dhammaanba madax dhaqameedka gobolka Sanaag ee munaasabadaasi ka soo qayb galay ay halkaasi ka cadeeyeen sida ay midnimada iyo qarannimada Soomaaliland u tahay lama taabtaan isla markaasna aanay waxba ka jirin shirka lagu dhoobdhoobayo deegaanka Taleex oo ay sheegeen inuu yahay mid lagu qaybinayo bulshada reer Soomaaliland ee caalanka ciidda iyo dawladnimadaba ay ka dhaxayso in munaasabadaasi uga hambalyeeyeen madax dhaqameedka gobolka ciidanka qaranka ee u heelan sugidda ammaanka iyo difaaca xuduudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay suldaanka cusub suldaan Cabdilaahi Cali Kor oo isaguna dhinaciisa ballan qaaday inuu ka shaqayn doono arrimaha nabadgelyada gobolka iyo isu soo dhaweynta beelaha Soomaaliland isagoo allana ka bariyay in xilkaas loo igmaday uu fududeeyo waa maxamuud maxamed xasan saraaf TV-ga qaranka Soomaaliland Ceergabo wararka kale ee dalka gudihiisa aanu idinka hayno ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka midowga Afrika ayaa shahaado sharaf guddoonsiiyey gudoomiyaha ururka suxufiyiinta Afrika Muhammad Daahir Faarax Jire oo ka tirsan telefishinka qaranka Soomaaliland oo muddadii xilkaasi ka dhamaaday munaasabad lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya munaasabada xilka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ururka suxufiyiinta Afrika iyo gudoomiyaha cusub ee ururkaasi loo doortay ayaa lagu qabtay xarunta AU-da ee dalka Itoobiya munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha baarlamaanka Afrika wasiirka warfaafinta ee dalka Itoobiya diblomaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka socday warbaahinta Afrika ayaa waxaa shahaado lagu guddoonsiiyey Muhammad Faarax Jire oo ahaa gudoomiyihii hore ururkaasi suxufiyiinta Afrika shahaadadaasi oo lagu guddoonsiiyey muddadii xilkaasi ay haysay waxyaalihii tirada badnaa ee ka qabatay dhinaca horumarinta ururkaasi iyo weliba qaaradda Afrika wariye Muhammad Faarax Jire oo munaasabadaasi ka hadashay ayaa uga mahad celisay mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadaasi iyo mas'uuliyiinta dalka Itoobiya iyo xubnihii warbaahinta ee la shaqeynayay waxaana ay ku dheeraatay muhiimadda ay leedahay warbaahinta iyo meelaha ay kaga jirta qaaradda Afrika iyadoo dalka Itoobiya sidoo kale ku ammaantay horumarinta uu ka qaatay dhinaca horumarinta qaaradda Afrika iyo shirarka Afrika intaba waxaana ay tilmaantay in dalka Itoobiya uu yahay meeshii ugu horeysay ee lagaga dhawaaqay ururka midowga Afrika sanadii 1964 waxaana ay tilmaantay in heerar badan oo soo maray ay dalka Itoobiya uu soo hooyay guulo tiro badan gudoomiyaha baarlamaanka Afrika Master Musa Idris oo shahaadadaasi doctorate-ka ahayd guddoonsiiyey wariye Muhammad Faarax Jire ayaa waxa uu ku tilmaamay in wariyaha Muhammad ay qayb weyn ka soo qaadatay dadaaladii Afrika waxa uu sidoo kale tilmaamay in koonfurta Suudaan iyo warbixinihii kaleba ay qayb weyn ka qaadatay waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Afrika wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalka Itoobiya Ato Barakat Simon diblomaasiyiin iyo mas'uuliyiin ka socday warbaahinta Afrika waxaana gudoomiyanimadii xilkaasi loo doortay Master Francis John oo u dhashay dalka galbeedka Afrika Muhammad Faarax Jire oo ka tirsan telefishinka qaranka Soomaaliland ugana soo waratay dalka Itoobiya ayaa muddadii xilkaasi ay haysay waxa ay la kulantay mas'uuliyiin tiro badan oo ka tirsan beesha caalamka iyo qaaradda Afrika oo ka mid yahay xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland agaasimaha guud iyo agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa ugu hambalyeeyay shahaadadaasi la guddoonsiiyey wariye Muhammad Faarax Jire sidoo kale wararka gobolada naga soo gaadhaya waxaa ku jira gudoomiyaha waxbarashada ee degmada Saaxil waxa uu kamay waxqabadkii dhinaca waxbarashada ee qodobay sanadkii la soo dhaafay 2011 gudoomiyaha waxa uu ka warramay dugsiyada ku yaala degmada Saaxil waxaanu sheegay in ay ka hirgaleen arrimo badan oo dhinaca waxbarashada dugsiga ku tilmaamay 20 dugsi oo ka dhisan tirada dhigato waxa uu sheegay ilaa 2200 arday ee dugsiyadaasi dhigta isla markaana 9 ka mid ah dugsiyadaasi ay leeyihiin xarumo quudimeed
isagoo ka waramaya oo daraska qorshaha sanadkan soo socda waxa uu sheegay inay u qorshaysan tahay in meelaha cariishada ah ee barashadu lagu baloodiyo caadiya waxa kale uu sheegay in abuurin tartamo dhacaaciyaha oo dhex mara dugsiyada degmadaasi si loo dhiirigeliyo ardayda waxa kale uu sheegay in abuuri doonaan kadis aqooneedyo kor lagu tayada aqooneed ee caruurta gabagabadiina waxa uu mahad celiyay maamulka iyo wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland shan mugle kaga jirto dardargelinta iyo taabagelinta arrimaha waxbarashada ee guud ahaanba Soomaaliland waxa isla warbixinta lamida ka waramay gudoomiyaha degmada Dar es Salaam Axmed Maxamed Qalinle waxaanu isaguna ka waramay waxyaabihii uu qabsoomay sanadkii la soo dhaafay 2011 waxa uu sheegay in 23 dugsi ay ka dhisan yihiin deegaanka hoos yimaada degmada Sabowanaag isla markaana ay dhigtaan dugsiyadaasi 2130 arday waxa uu sheegay in 6 kamid ah ay leeyihiin xarumo qoodimeed waxyaabaha uu qorshaysan sanadka soo socdana waxa uu sheegay in ay ku dadaali doonaan sidii ay u dhameystiri lahaayeen baahiyaha dhinaca waxbarashada ee deegaankaasi u baahan yahay sidoo kalena waxa uu sheegay in ay abuuri doonaan tartamo iyo kadisi aqooneedyo kor lagu qaadayo tayada aqoonta ardayda goobahaasi wax ka barata warkood kala socoteen telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland daawadayaal waa naga intaasi intaanu warkan mid lamida dib ugu kulmi doono hadii Allah awood leh uu inagu simo inta ka horeysa dhamaantiin meel kasta oo aad joogtaanba gudaya dibad waxaan leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh